Kulunkan oo geekan Sukoyang maamulka degmada Baraawe odayaalka dhaqanka ulmaawdiinka iyo waliba saasoo kala bulshada ku nool degmada Baraawe iyo waliba soo jeedihay taageero lang muujiyay suldaanka guud ee degmada Mirfla Suldaan Haydar Suldaan Suufi Suldaan Muye waliba kulunku sahay kolka amaanay waana la ka dhawaayay suldaanka guud ee degmada Mirfla Suldaan Haydar Suldaan Muye odayaalka dhaqanka ulmaawdiinka iyo waliba bulshada qaybay shirkadiisa siyaasiyiinta ku hadalay meelaha iyo waliba suldaanka koodsana anti airportka degmada Baraawe sin ka dhaqsiga badan lan fura maadaama dadka ku nool degmada Baraawe eedan yarta nas dareerowsho iyo waliba safarada lang maro hawda waliba maamulka degmada Baraawe si wada jiray oo ka doayana suldaanka guul ugu deeri degmooyinkaas kulunkan tus dareeriyo waliba meelaasaytu ku hadalay gudoomiyaha maxkamadda degmada Baraawe Maxamed Abduqaadir Figi gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada Baraawe gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba saasoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo waliba siyaasadda degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose atawaano iyo ku hadlayaan meelaasaytii deegaanka inaanu cid kasto gaarsiino inay soo jirin tafaraaro degmadu ay tahay midnimo kuna taageerayno halganka dheer oo suldaanka deegaanka Baraawe Suldaan Haydar Suldaan Suufi oo qabtay oo ah in uu ku dadaalay dowladihii kala duwan ee ku meelgaarka ah shaareeyay degmada Baraawe markii uu tagay xajka in isaga iyo fuud badan degmada Baraawe soo duceeyeen in dadkeeda qulubtooda Ilaahay isku mideeyo in wadajir loo wada shaqeeyo in ummadda hoggaankeeda iyo wadajirkeeda laga wada shaqeeyo in degmadu ay tahay daasideed ee degmooyinka gobolada iyo ilaa heer baarlamaan waxaanu doonaynaa inaanu helno bulsho u adeegi karta bulshooyinka ku nool maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaanu codsanaynaa in dhammaan hawlaha loo hayo bulshada ay noqdaan kuwa laga wada tashado la isku wada geliyo lesna marxala qaxaan abaaro dhibaatooyin arrimahaas oo dhan waxaan u aanaynaynaa inay tahay ka warhaylaanta laga warhaayo ee aan loo martay aan howlaha ay u baahan tahay aan degmada laga garab siinaynin in gobolada degmooyinka kala qaarkood ay ilaa 100 hay'ad ay ka shaqeeyaan Baraawe aysan hal hay'ad aysan joogin laguna tilmaamo inay tahay caasimadda Koonfur Galbeed waxaanu leenahay arrinta ninka saaxiibkay ahay oo Maxamed Abduqaadir ahay ayaa wax badan ka hadlay dadka faraha badan leh adiga aad sameysay iyo dadaalada faraha badan leh adiga aad u soo gashay maadaama xaaje cusub aad tahay sanadkan xadkaad ugu soo duceysay deegaanka ma aragtay alxamdulillah noloshiisa iyo waxqabadkiisa iyo israaciisa in Ilaahay uu israaciyo ducadaas Allah ka aqbala kullanahay tan kale labaad deegaanka waa ku sugayaa waana ku heelinyahay waxaa kale uu ka sugayaa deegaanka waxqabadkiisii loo qabtay in loo dhammaystiro airportka dahabka airportka liiraha in loo furo dadweynaha si mataqaana cariiriga waqtiga dheer ay ku soo jireen ay uga baxaan noloshooda iyo waxqabadkoodana maanta alxamdulillah rabbil caalamiin si fiican loogu arko tan kale labaad in dekeda oo Baraawe la soo nooleeyo loo dhiso waxqabadka deegaanka isdhamaystirkiisa oo dhan waxyaabo badan ka dhiman sultaan waxa soo qabatay waa noo soo qabatay wixii dhimanna inaan nooga soo dhamaystirtay dhinaca dawladda ka sugayna insha Allah waxaa kaloo meesha ka sii salaameynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna May in waxaan iga codsanaynaa maadaama ay tahay caasimada Koonfur Galbeed Baraawe sida dastuurka ku qoran qodobka 7 farqadiisa koowaad waxa dastuurka ku qoran hadii lagu dhamaynin ma jirto dhaqan dawladeed ama dhaqan macna israaciil midna lama heli karo sidaas darteed waxaan codsanaynaa in dastuurka wixii ku qoran loo tixgeliyo shaqadii macnaha uu amraaya dastuurkana ilaan kala dambeynta dawladeed iyo israaca ummadda waa shuruudii ay dhigatay in la tixgeliyo la isku raaco taasoo ah dastuurkeena Koonfur Galbeed waxa ku qoran farqadiisa 7 qodobka 7 farqadiisa koowaad
in ay tahay caasimadda koonfur galbeed baraawe sidaas darteed taasoo macnaha lagu baasgareeyey dastuurka laguna ansixiyey sidaas waxaa codsanaynaa in sidii ay tahay ay u yimaadiin dowladda ayna isku soo raacaan shaqooyinka noo dhimanna ay noo dhammaystiraan marka waxaa waaye intaasoo dhan waxaa uga fadhinaa madaxda hadda annaga kor aan ku soo xusnay oo u sarraysa koonfur galbeed iyo suldaanka guud galweyn iyo goobweyn suldaan xaydar suldaan suufi suldaan mayi waa ku salaamaynaa wax badanaa ku salaamaynaa taageerada dadka iyo deegaanka ay ku hayaanna caalamkao dhan indhahay ku hayaan wayna u jeedaan maanta qaabka loo fadhiyo baraawe ayadoo waxba ka maqneen bulshada baraawe iyo nawaaxiyada ku nool iyo qaabka ay u fadhiyaanba ay ka tarjumi doonto taageerada weyn ay ku hayaan insha allah tacaala وعلى آل محمد وصحبه وسلم وحوايو وحوايو وغاير كونا يقصرين براوي وسلامتهم ساد مدح وليدهم ابن وليدهم مام وليدهم ورب الشيخ وليدهم وسلامتهم سلاكتهم اسكدا في المباهنة اسكدا سلطان حيدر سلطان سوفي سلطان ميت سلطان تاجر حقلا كوينا واكو تاجرنا مركات المدينة كفر كيسنا إلى يهدوي ما تتوحي كوكت هاي تاجر أول تاجر أيوه سلطان كديجانك سلطان حيدر واكو سورة ويننا واكو تاجر سناي سلطان كهنيات هاي مارك بالشدة برا وكنا وحكم عن مجرى ما تتا سلام بقولك تمك أفرت عليك سلام يان خاصة أنا بقول سلام يا odayal ka deegaanka ururka hooyooyinka ururka dhalinyarada maaragtay maamulka laftiisa ana mas'uul ka ah saacadan sidaa darteeda waa idin salaamayna waan idin sumadoona faraxa naga muuqdana waad arkaysiin waa faraxsanahay lama dareenkeenu meel fog u jira maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladan qiimaha badan oo quruxda badan leh waxa loo soo abaabulay waa taageerida iyo niyadda loo hayo sultaanka deegaanka sultaan xaydar sultaan suufi sultaan mayadha ruuxaantii waa kulleyba waa xaflad aad u qurux badan laguna taageerayo sultaanka guud deegaanka looma kala maqna hadday ahaan lahayd odayaashii dhaqanka hadday ahaan lahayd ururkii haweenka hadday ahaan lahayd ururka dhalinyarada hadday ahaan lahayd maamulkii amnigii dhammaan iyo bulshada noocyadeedii kala duwanba waa laga soo qayb galay waxaan leenahay sultaan waa ku taageersannahay waana ku taageeri doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo deegaanku maantay wax kale oo laga sheekaysa caasimadda dhabtaana waad imaan doontaa insha allahu tacaala sultaan waxqabadkaaga annagu haddadaan wax hadda meeshaan aan kusoo joogi karna maahan wax 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ahna maahan waxqabadka aad deegaanka u qabatay iyo midda aad dowladda dhexe iyo dowladda koonfur galbeed aad u qabatay waa mid qoran la wadana ogsoon yahay waxaan ku leenahay insha Allah taala ilaahay garabkaaga ha galo waana ku duceynaa insha Allah billahi kariim midda kale sultaan kulleyba wixii kale waxaan ku dhamaysan doonaa insha Allah taala imaashahaaga fadhi baan ku sheekaysan doonaa isku warsan doonaa inaad waqti la siisidna waa u baahanahay hade waxa weeye waa ku salaaminaa insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi
لما أنا كان كلام يا أضياء شرقنك أوركا وينك أوركا الليلة صحافة هذا كسر كل شيء حريري هو حريري هذا دمويك اسمها قدومية دقمة أنا أبغى هذا مقع عيد خلق السلاح الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشعب الصومالي هذا يتاقيهم إنay helaan hay'adaha rasmiga ah ee loo talgalay caasimada Koonfur Galbeed inay halka yimaadaan garoonka naga aadmo odayaasha dhaqanka gudoomiyaha maxkamadda bacda saxaafadda gudoomiyaha arrimaha bulshada xiriiriyaha gobolka Shabeellaha Hoose Masar Aadan iyo madaxda kale dhammaan inta iyo taliyaha booliska dhammaan waa salaamantihiin sida sharafta leh nidaamka leh oo loo soo agaasimay xafladan quruxda badan oo ku taageerayna suldaankeena guud ee degmada Baraawe Sultaan Haydar Sultaan Suufi Sultaan Maya oo maanta taageero weyn degmada Baraawe bulshada Soomaaliyeed degmada Baraawe ku nool dhammaan ay taageerka wuxuu naga leeyahay muhiimad gooni ah waa ujeedaa sultaan dadkaadii dalkaada oo Koonfur Galbeed caasimadeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Baraawe inay maanta diyaar ku yihiin sida wanaagsan sharafta leh sultaan shacabkaada way ku sugayaan shacabkaada marma lama ku sugayaan waa ujeedaa degmada xagga amniga ka hadla waa boqolkiiba boqol xagga arrimaha bulshada xagga isku socodka gaadiidka dadweynaha dhammaan isdhexgalka bulshada dhinac walba degmada waa dhammaan waxaan leeyahay sida noo imaada arka caasimadda ku shaqeeya xildhibaanada qaaliga ah dhammaan inta ku shaqeeyay codsayna anoo timaadin aragtiin caanaha iyo malaayga aad naga qaybsatiin anoo timaadin nabadana ana nool joogteen waxaan kaloo rabnaa in aeroboortka degmada Baraawe in noola furo sida uu naqsiyaha badan maadaama bulshooyinka ay aad u xayiriyiin dibadaha kii Mareykanka ku nool kii USA ku nool kii Carab ku nool meel walba ku nool si ay dadkooda u soo booqdaan marka waxaan rabnaa aeroboortka sida uu naqsiyaha badan in noola furo ay rabnaa si dhalinyarada Soomaaliyeed ay u helaan in muxuu ahay shaqo abuur iyo wax walba ay u helaan waa ujeedaa magaalada waxaa ka jirta shaqo la'aan waxa marka waxaan rabnaa in hay'adahan ayagana waxa ugu baaqaynaa inay degmada Baraawe yimaadaan ee ka shaqo galaan si dadka Soomaaliyeed ay u helaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay u helaan shaqo iyo wax walba ay shaqo abuur bay u helaan marka wallahi waxaan hadda ku soo dhaweynayaa xiriiriyaha gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiye aadan ku soo dhaw mudane gudoomiye xiriiriye ku soo dhaw guud deegaanka Baraawe Sultaan Haydar Sultaan Suufi Sultaan Maya dheere taariikh ahaan haddaan ka hadlo suldaanka guud ah Sultaan Haydar aabihiisa Suufi Maya dheere la yiraahdo Maya dheerena daahma saarna waa ninkii deegaankan dadka waxqab u ahaayeen nafaqadarka u ahaayeen kabilka ahaay waay meelaha waxaan kama maqalnaa in dad ay suldaan maahan muran badan la gelinayo waa aragnay macnaheeda ma ahan suldaannimada in la iska sheegto annaga taariikh ahaan dadku waxaan asal raac u raacaynaa waxqabadka ama asal raac qofku huya Sultaan Suufi aabihiisa Maya dheere la dhihi jiray Maya dheerena deegaanka Baraawe galweyn ilaa goobeen asal ahaan wuxuu lahaa saldanad xoog leh ayuu ku lahaa deegaankan dadka looga dambeeyaa ku jira ninka hadda maanta la soo dhaweeyaa Sultaan Haydar awoowihiisa aabihiisa ninkii dhalay awoowihiisa waa Maya dheere meelaha waxaan ka maqlaay waa dadyo leh waa meelaha laga soo qabtay iyo meelaha laga soo waxeeyay soo dhalay Suufi Maya soo dhalay hadii meelaha laga soo qabtay horta su'aashaas aan qabaa dadka meelaha ka hadlay su'aashaas aan u qabaa aniga adeera gudoomiyaha degmada isku fuuyo gobolka Shabeellaha Hoose xiriirka degmooyinka ah ma qabsani banaanka jooga su'aalaan ka qabaa dadka meelaha ku deegaankan dadka hadda halkaan wada jooga ma ahan tunne kaliya in la ogaado la rabaa deegaanka hadii lagu yiraahdo ma degana tunne kaliya Soomaali Ilaahay yaa wada degan shanta Soomaaliyeed aa wada degan shanta Soomaaliyeedna maanta halkaan waxay isugu yimaadeen in suldaankooda ay weynta waxa u joogo lagu taageerayo waa lagu taageeraa shaka kuma jiro wax markii oo sidaas noqday waa wax shaka ku jira suldaanka nin shaka ku jira maaha waa la soo dhaweynaya Sultaan Suufi Sultaan Maya dheere loo sameeyay annagana qayb ka nahay aad baan u taageersanahay aad
aad u soo dhaweynaynaa haddaan nahay maamul gobol iyo mid degma iyo amniga iyo ururada qaybahooda kala duwan intii soo qabaqaabasana waxaan leeyahay maxaa idinka gaarto sidii aan warku ku haayana soo dhaweyntan tunna ma ahan dadka soo aasaasay waa Soomaali Ilaahay waxaad ka garan kartaa marka dadka asal raaca qofka inuu yahay oo gacan ku rumaysan beeshiisa ma aha dadka qabqaabada sameeyay sida aniga la igu soo wargeliyay waa Soomaali Ilaahay dhaqankii degmada Baraawe jooga ayaa soo aasaaseen kulankan waa sal isku raacsan yahay madow iyo cadaan aqaar iyo jaalle inta waa isku raacsan yahay anagana haddana siyaasiyiintii waa aad iyo aad u taageersanahay aad iyo aad u soo dhaweynaa sultaankeena sultaan xeer sultaan Ahmed Ibrahim Bula telefishinka iyo raadiyaha dawladda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo